بني آدم كوبا باللوبيسي هوري وحباي قبي برشي أوكيد يوكا قبقي daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena waxbarasho ee idaacadda Alison ee uu soo saaray wariyaheena Cabdinajax anigoo Cabdifataax Alsiisi ahna waa idin la socodsiinaya qodobada aad barnaamijkeena ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah لغة أهل الجنة وأهل الجنة لغة يكون هذيان وهي لغة القرآن macallin Abshir oo ah baraha qaybta Carabiga ee Alison College oo ka warbixinaya ahamiyadda luqadda Carabiga waxaa sidoo kale barnaamijkeena qayb ka ah faallada toddobaadka ee waxbarashada Alison College iyo bismillaah magacaygu waa Sihaan Maxamed waxaan dhigtaa Alison College Sihaan Maxamed oo ka mid ah ardayda wax ka barata Alison College oo ka hadlaysa hamigeeda waxbarasho saaxiibayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii barnaamijkeena ugu waaweynaa marka horese ku soo dhawaada faallada toddobaadka iyo waxbarashada Alison College waxa ay soo mariyay wariye Abdi Yuusuf Abdi Najax mahadsanid Cabdi Fataax waxaa miiska inoo saaran toddobaadkan waxbarashada Alison College gaar ahaan qaybta luqadaha oo aan kaga faalloo doono luqadda Sawaaxiliga oo ah luqadda ugu afku haynta badan qaaraddan Afrika marka laga yimaado luqadda Ingiriiska oo dhiibaal ku ah umadweynta qaaradda Afrika luqadda Sawaaxiliga ayaa waxaa ku hadla qiyaas ahaan in ka badan 150 milyan oo qof kuwaasoo ku kala nool dalal ku kala yaala qaaraddan qof walba oo doonaya dhib la'aan inuu ku mushaaxo East Africa ayaa ku qasban inuu barto luqadda Sawaaxiliga taasoo ka mid ah luqadaha Afrika midda ugu afka dheer luqaddan Sawaaxiliga ayaa hadda barashadeedu si habsami leh uga socota Alison College oo ka mid ah goobaha lagu barto luqadaha safka hore uga jira caalamka college-ka oo ku yaala xaafadda Islay ee magaalada Nairobi gaar ahaan Fort Street ayaa barashada luqaddan u diyaariyay macallimiin u dhashay luqadda khibradna u leh waxbarista ardayda dhanka kale macallin ka mid ah kuwa ka howlgala Alison ayaan wax ka weydiiyey qaabsami u socodka waxbarashada college-ka iyo hadday jiraan arday dhammaysay barashada luqadda Sawaaxiliga Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi ninaitwa Mwalimu Abdulmalik Bashar. Mimi ni mwalimu katika shule ya Alison College. Na horta Kiswahiliga si aad ay u socotaa ardayda badan dhigata Kiswahiliga kuwan waa ardayda oo Kiswahiliga dhigata qaar oo ka qalin jebisayna Kiswahiliga luqadda Kiswahiliga jiraan marka waxaan idinku dhiirigelinayaa ardayda Kiswahiliga u baahan ha ku soo biiraan Alison College haddaba Alison College ayaa ka mid ah goobaha farakutiriska ah ee lagu barto ku hadalka luqad baraxtiran